الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحي noo soo dejiyey diin dhammaystiran diintaasi oo maamusha nolosheenna iyo geerideennaba ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ina amray inta aynu nool nahay inaynu raacno inu ku dhaqanno qaar inaga midii marka ay geeriyoodaanna inaynu u aasno si waafaqsan sida diinta iyo shareecadaasi ay dhigayso قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa leh cid ilaahay la wadaagi kartaana ma jirto sidaasi ayaana lay amray waxaanaan ahay qofka u horeeya ee amarka ilaahay qaadanaya sharcigiisana u hoggaansamaya waxaynu maqlaynay maalmahan u dambeeyey warar soo baxaya oo tilmaamaya in dad lagu gubay meydkooda waddankan aynu deganay arrin qarsoon ma aha waa arrin dibadda u soo baxday warbaahintuna ay ka hadleen dad ka mida saraakiisha iyo hay-adaha dowladduna ay ka hadleen qadiyaddaasi inaan ka hadlo waxaa igu kalifaya warka uu bixiyey sarkaalka ka socda wasaaradda caafimaadka ee uu sheegay arrintaa fasaxeeda inay bixiyeen xeer ilaalinta iyo wasaaradda awqaafta taasoo macnaheedu uu yahay mar haddii la yidhi wasaaraddii awqaafta ayaa bixisay oggolaanshahaas waa wasaaraddii dalka u qaabilsanayd arrimaha diinta waa sida isagu warka u dhigay haddii ay jirto macnaheedu wuxuu noqonayaa arrintaa fatwo diiniya ayaa lagu saleeyey oo diinta islaamka ayaa loogu abtiriyo macnaheedu waxa weeye diinta ayaa ogol in gaalada diimahoodu ay dhigayaan meydkooda in la gubaa hadday dalkeenna ku dhintaan inaynu u oggolaano kana qayb qaadanno gubistooda inay diinteennu ogoshahay macnuhu saas u dhacaya waxaa kaloo jira arrintaasi wuxuu sheegay sarkaalka ku hadlayay magaca wasaaradda caafimaadka inay weligeedba dhici jirtay waddankuna waa waddan islaama culima ayuu leeyahay mas-uuliyad baana saaran dadka muslimiinta ee caalamka ku noolina haddii aynu sidaa kaga aamusno way nala yaabayaan oo dadku miyaanay dad muslimiina ahayn miyaanay culimo iyo cid diinta garanaysaa dhex joogin ayay odhanayaan ceebna arrinta noocaasi way noo soo jiidaysaa dal ahaan iyo dad ahaanba qofka dhintay walaalayaal hadduu yahay qof muslima xuquuq gaara ayuu leeyahay oo uu ku helay inuu yahay bani aadam dhintay isla markaana muslima afar arrimood ayuu xaq ugu leeyahay dadka muslimiinta ee nool oo ugu yaraan ay tahay in ka midii inay shaqada iyo hawshaasi qabtaan oo inta kalena dembigu uu kaga dhaco afarta arrimood waxaa kow ka ah in la maydho in la kafno in lagu tukado iyo in la aaso oo meesha lagu aasayaana ay noqoto god loo qoday oo bahalaha ka celiya urtiisu dabadda inay usoo baxdana ka hor istaaga ugu yaraan in intaa laga sii dheereeyaana waa fiican tahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi awsicuu wa acmiquu
markaad qabriga qodaysaan ballaadhiya qotadiisana dheereeya. cumar ibnu khataabna radia allahu canhu wuxuu odhan jiray qaama iyo basta waa in laga dhigo nin jooggii oo lagu daray gacmihiisa oo kor uu taago sidaa u kala bixiyey. waa in qabriga la leekaysiiyo, waa sida fiican. in weliba qofka muslimkaa iil loo qodo ayaa fiican, haddaanay meeshu ahayn meel ciid jilicsan oo dumaysa. oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iil baa loo duway oo lagu aasay, sidaasaanu ilaahay u dooray. sida ilaahay uu rasuulkiisa u dooray ayaana sida fiican. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allaxdu lana washaqu ligayrina. iilka innagaa iskale haddaynu nahay ummadda nebi maxamed rumaysay, qabaaljeexana ummadaha kale ayaa leh. qofka muslimkaa qaabkaa loo aasayo waxaa ka muuqda maamuus la maamuusayo. qofka dhintay hadduu yahay qof gaala oo muslimiin ku dhex dhintay, isagu maamuuskaasi ma laha, oo in lagu tukadaa waa xaaraan. walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih. nebi maxamed buu ilaahay sidaa ku yihi, mid iyaga ka mid oo dhintay weligaa ku tukan, qabrigiisana ha dul istaagin. waayo salaaddu waa shafeeco qaad ilaahay looga shafeeco qaadayo, loo baryayo. gaalna in ilaahay loo baryo oo isagoo dhintay naxariis iyo dembi dhaaf loo weydiiyaa ma banaana. in la maydhaano sidaasoo kale waajibkuma aha dadka muslimiinta ah. waase la aasayaa, waxaa loo aasayaana maamuus la maamuusaya ma aha. baktigiisaa dadka laga qarinayaa si aanay dhibaata uga soo gaadhin. sidaasi ayaanu xaalku ahaa waktigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. sida uu wariyay alimaamu nasaa-i, markuu dhintay abu aalib oo rasuulka adeerkiia laakiin gaalnimo ku dhintay, waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi cali bin abi aalib isagoo leh ina camaka daal qad halak, adeerkaagii lunsanaa uu dhintay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idhab fawaarihi, orodoo tagoo ciidda ku rog, bimacnaa aas. cali wuxu uhi inahu maata mushrikan, isagoo ilaahay u shariik yeela buu dhintay rasuulka ilaahayow. qaala idhab fawaarihi, orodoo tagoo ciidda ku rog buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, macnaa mushrik baa ha noqdee. madaxyaweyntii qureysheyd ee gaalada iyo mushrikiinta ahaa ee dagaalkii beder ku leeday ee lagu gumaaday, nebigu calayhi salaatu wasalaam baktigoodii wuxuu ku guray goof ama ceel meeshaasi ku yaalay. manay dhicin waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam in qof gaaloo dhintay la gubay. xataa haba sheegtaan dadkiisu in mabda-ooda iyo caqidoodu ay tahay amwaadooda iyo dadkooda dhintay in la gubeen. taa waxa natiijadeedu ay noqonaysaa haddii qof gaala oo waxa diin dadkiisu ay ku sheegayaan uu yahay marka uu dhintay in la gubo, uu dal islaama ku dhex dhinto, inay gubaan in laga ogolaado oo dhulka islaamka ay ku dhex gubaan, iyo in arrinta noocaasiya loo suurtogeliyo oo lagu caawiyaa midna ma banaana. waxaanay u bannaanayn qofku gaalba ha noqdee, waa bani aadam, karaamadii ilaahay bani aadamka uu karaameeye wax ka wata. waa ka ilaahay yihi walaqad karamnaa bani aadama. markaa in la gubaa ma banaana. waa ta labaade, rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray saxaabadiisa qaar ka mid a, wuxuu ihi hebel iyo hebel haddaad la kulantaan guba. in yar markii ay ka sii socdeen, sida muuqata rasuulka waxyi baa ku soo degay, ayuu u yeedhay. wuxuu yihi soo noqda. markay soo noqdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi haddaad la kulantaan dila, laakiin ha gubina. waxaanu arrinkaa ku sababeeyey
dabka waxa wax ku cadaabi kara uun allaha abuuray laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar laa yanbagii liaxadi an yucadiba binnaarna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yidhi qofna uma banaana inuu dabka wax ku cadaabo ilaahay un baa subxaana wa tacaala dabka abuuray isaga un baana xaq u leh inuu wax ku cadaabo waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa muslimiintu marka ay jihaadka ku jiraan gaalada ay laayaan ee jihaadkaasi ay ku laayaan inay bakti wareemaan inay gubaan iska daaya inay bakti wareemaan oo iyagoo meyd oo kuwa dhintay ay jarjaraan amaba se warmihii iyo ay sii gelgeliyaan ama seeftii ay la sii dhacaan ama xubnaha qaarkood ay ka gooyaan waxyaabaha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmi jiray ciidamada islaamka ee jihaadka u dirayo ayay arrintaasi ka mid ahayd waxaa kaloo daliilu ah arrintaasi inaanay bannaanayn oo ah arrin aanay dadka badankoodu dareensanayn waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa gaalo mabda-oodu uu sidaa yahay kanay gubayaanna waa gaal aan qiimo lahayne maxay inaga inaga galay arrin weyn baa meesha ku jirta arrintaasi waxay tahay ma bannaana gaalada waxyaabaha astaan diimeed u ah qofka muslimka ahi inuu u suurtogeliyo ku kaalmeeyo ama uu kala qayb qaato in dadkooda dhintay hinduuska iyo kuwa la mabdaahi ay gubaana arrin caadiya maahe waa arrin astaan diineed u ah ilaahay subxaana wa tacaala maruu ka warramayay cibaad uraxmaan sifaadkooda waxa uu ihi waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waa kuwa baadilka aan goobjoog u noqon waxay ku fasireen ahlucilmiga qaarkood saxaabada taabiciintii saxaabada soo gaadhay ka mid iyo kuwa ka dambeeyeyba ciidaha gaalada inaanu muslimku ka qayb gelin arrinkanina ciid waaba kasii daran yahayba aayadduna waa caam ciidaha ay qaarkood ku fasireen culimada qaarkoodna waa tusaale ay ka bixiyeenun waxay masaladaa culimada qaarkood gaadhsiiyeen nin hinduus ahaan jiray oo isagu islaamay oo aabbihii oo hinduusi uu dhintay ayaa wuxuu weydiiyey ma gubi karaa waxay culimadu u fatwoodeen ma gubi kartid haddii arrinkaa lagaaga xoog roonaadana meesha lagu gubayo xataa ma tegi kartid adigu waayo waa meeluu ka socdo munkar iyo wax sharciga ilaahay khilaafsan maxaad u malaynaysaa adoo u diidi kara arrinkaa haddaad ka ogolaato ood adigu fasaxaad u siiso ood xaabada usoo gurto ood shidaalka u geyso ama aad ka iibiso ood gaadh ka qabato aada ilaaliso marka hawsha noocaasiya la qabanayo miyaanay khilaafsanayn qowlka ilaahay uu yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wixii dembi iyo xadguduba cidna ha ku caawinina miyaanay noqon ahayn arrintani miyaanay ahayn arrin dembi iyo xadguduba bani aadam la gubaya inay tahay marka laga yimaado waxaase iyagu diin ka dhigayaano ay leeyihin waa sax adiguna caawimaad la garab istaagta shaki kuma jiro qofka ficilkaa sameeyey aayaddaasi waxay diiday inuu ku dhacay waajibna ay tahay hadduu garanayey oo arrintaasi u badrheedhay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwana ila calى الظaalimiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله arrinkaasi dhacay horena inuu dhici jiray la sheegay sida aynu sheegnay buu u khilaafsan yahay sharcigeena iyo diinta islaamka nidaamyada iyo qawaaniinta waddanka u yaalana waa mid ka hor imanaya oo haddii qof waddankan ku dhinto sida dadka waddankan diin iyo mabda u ah in loo aaso weeye haddii la diidana waa in la qaato
oo meesha iyagu ay doonayaan ay la tagaan oo inaga ay nala dhaafaan. arrinta labaad ee masalada la xidhiidha waxay tahay waa qaabka gubista lafteedu ay u dhacday. waxbaanu ka warrami maaye dadku way arkeen qaabka meesha wax lagu gubay iyo gubista dabadeed waxa meeshii sii yaalla iyo waxa lagaga tegayba. taana waxaa ka warramay dadkii deegaanka deganaa, cabashana dawladda uga muujiyey. waxaanan u malaynayaa cabashoodu inay gaadhay oo kollay dawladduna arrinta noocaasiyo jawaabay ka siin doonto. laakiin aniga ujeeddadaydu waxay ahayd masalada ku saabsan qof gaala oo dhul islaama ku dhintay ma la gubi karaa, ma loo suurto gelin karaa, ma lagu caawin karaa dadka doonaya inay gubaan. masaladaasina xukunkeedu waa saasi aada maqasheen. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaa an yufaqihana fi diinina wayakfira lana dunuubana wayarfaca lana adarajaat walxasanaat wa an yunajiyana min aljahli waاldalaal والعذاب والمقت والغضب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.